bandhig carbeedkan halkan lagu soo bandhigay oo loogu magac daray 2030 Muqdisho ayaa lagu qabtay bartamaha magaalada London waana kii noociisa oo kale ugu horeeyay oo abid lagu qabto dhalinyaro Soomaaliyeed oo ayagu isqaban qaabiyay oo doonayay inay sumcadda foosha xun ee baxday waayahan dambe inay bedelaan ayaa soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah ka wareysanay wixii ku kalifay inay soo qabteen hadaladoodii waxa ka mid ahaa ujeedada ugu weyn aan ka leenahay waxay ahayd in Muqdisho oo dagaaladii iyo ay saameeyeen in dib loo soo nooleeyo maxaa yeelay Muqdisho waxay ahayd يعني magaalo oo ganacsiga ilaa taariikh weyn ku leh sida waxa jirtay ganacsiga badweynta India oo loo yaqaanay Sawaaxili Trade Route waxa kaloo jiray ganacsiga Silk Road la dhihi jiray qayb weyn ay ka qaadan jirtay taariikh ahaan Muqdisho waxay ahayd magaalooyinka Hong Kong iyo Dubai sida ahaan jirtay marka hadafkan waxa waaye in Muqdisho dib loogu soo nooleeyo haddii Ilaahay yiraahdo oo ay noqoto magaalo ganacsi oo weyn insha Allah taala haddii Ilaahay yiraahdo exhibition-kan wuxuu ku saabsan yahay inaan ka dhex abuurno isdhexgal ah oo dadkan wadankan iyo dadkan kale wadankan u dhashay Ingiriiska ah iyo dadkan kale ajaanibka ah ee wadankan degan iyo gaar ahaan dadkan Soomaalida ah wadankan imaaday gaar ahaan waqtigii dagaalkii sokeeye u dhacay ilaa iyo hadda inay isdhexgal inaan abuurno maadaama dadkan wadankan iyo ajaanibkan kale Soomaalida badan waxay ku eedeeyaan inay Soomaalida la dhexgali karin inay yihiin dad iyaga badan isku kooban oo kaliya marka waxaan rabnaa inaan meeshan aan tusno dadkan kale Soomaalida kaliya ma aha dad iyaga kaliya oo isku kooban waa inay dad diyaar u ah inay mujtamacan kala dhexgalaan dhaqan Soomaalida wax badan oo muhiim u yahay runtii dhaqanka Soomaalida markaan soo barigno dadkii Soomaalida dhalinyarta gaar ahaan wadankan ku dhashay ay waxay arkayaan dhaqankoodii isla markaana dadkan ajaanibkana waxay arkayaan dadkan Soomaalida waxay leeyihiin oo hidda iyo dhaqan iyagu ah ama ay hiigsadaan markaasi waxaan meesha ka rajaynaynaa dadkan Soomaalida dadkii dhaqankooda aan arkin oo inay wax ku abuurto hal abuur inay ku abuurto oo waxyaabahan ku saabsan farshaxankan iyo waxyaabahan kale ay sii wataan daraasad iyaga shakhsi ah u gaar ah inay sii sameystaan ama horumarin weyn kadibna ama qayb lixaad inay ka ciyaaraan oo ku saabsan horumarinta waxyaabaha anaga taariikhiga anagu leeyahay ha noqoto farshaxanka ha noqoto sida gabayga ha noqoto iyo waxyaabaha kale dhan oo lagu yaqaan oo samaanta badan oo lagu yaqaan Soomaaliya intii aan joogay indhahaygu waxay qabanayeen waxyaalo kala duwan oo aad iyo aad dhaqanka Soomaalida ugu weyn oo ay ka mid yihiin sawirro barisamaadkii la qaaday iyo waliba bandhig gaar ah oo jaamacaddu ay samaysay ka mid ah jaamacadaha London oo lagu soo bandhigayo sida Soomaalida dhaqankeedu uu yahay maadaama aan nahay dad oraahda wax isugu gudbiya dhaqamadeennii heesihii gabayadii lagu soo bandhigayo dhanka kalena farshaxaniistayaal fara badan ayaa ka soo qayb qaatay oo Soomaaliya oo doonaya inay arkaan mar labaad caasimadda qaranka Soomaaliya oo horay u socoto ما شاء الله فرشحن كان waxay dadaal wadareed runtii waxa jirtay dhalinyaro Soomaaliya oo farshaxana oo ka qayb qaatay oo soo bandhigay maxallaha waxyaabo qurux badan ayagoo ku saadaalinay Muqdisho 2030 siday noqon doonto Soomaalina waxay dhahdaa tagta daayo timaado ogow yani hadafka barnaamijkan waxa waaye inaan iska dayno maalin la noolnimada oo aan bilowno inaan ka fiirino mustaqbalka maantana aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galnay exhibition-kan waxaan aragnay Somali artists oo musawiradooda xanuunka iyo dhibaatada ay Soomaalida soo mareen na tusay but waxay also more importantly na tuseen hope inay jirto wadankii future inuu ka yaal oo ka jiro marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galnay maanta waxaan u imaanay maanta meeshaan inaan dadka maxay support-ka tusino Soomaalida oo waxaan aragnay waxyaalo badan oo future-ka hope siinayso oo ah ina waxyaalaha Soomaalida hadda marayaan iyo waxyaalaha ka bedeli karno aniga like waxyaalo badan maanta maxay ahayd ee ii kasabtay inaan ku fikiro like oo kamid ah maxaa u qaban karaa dadkayga maxaa Soomaaliya ku caawin karaa so waan ku faraxsanahay meeshaan maanta imaadeen alxamdulillah. This is representative of peeling the present back with a rusty, bloody, gnarly country that is, or city as is, to a bright new future. carwadan haddaba ayaa waxay soconaysaa muddo 6 wiiga lala rajaynayaa dad fara badan ay ka soo qayb qaataan maantana waxay maalintii koowaad oo dad gooniya lagu soo marti qaaday haddaba waxyaalaha muhiimka lagu soo bandhigi doona ayaa waxaa ka mid ah suugaanta Soomaalida dhaqanka Soomaalida kala duwan iyo waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed ay ku faanto sida cuntooyinka iyo waxyaalaha la midka Cabdi Xafiid Maxamuud Jaamac TV-ga Universal London.